Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenii sheeko xiiso badan xogayaal u noqo barnaamijkeennan waxaynu kusoo qaadan doonaa qiso markaasi ku dhacday nin markaasi iibiye cadayga ninkani ayaa waxa uu ahaa nin markaasi cadaylaha isla markaasina waxa uu ahaa nin ka ganacsada iibinta cadayga maalin maalmaha ka mid a ayaa isaga oo markaasi suuqa ku iibinaya caday ayaa waxaa ka hor yimi nin markaasi rabay in uu ka iibsado cadaygaasi dabadeetana ninkii ayaa markii uu la soo istaagay ayaa waxa uu ku yidhi waxaan rabaa inaan adiga iibiso caday markii cadaygii ay kala iibsadeen ayaa markaasi waxa uu ku yidhi niyo horta saaxiib muddo aada u dheer baan ku arkayay oo aad iibinaysay cadayga balse wax guulana kamaad gaadhin sidee baad maxaan kugu dhahdaayey aada u maareysaa nolol maalmeedkaaga dabadeedna markaasi waxa uu ku yidhi waxaan iibiyaa keliya taa cadaygaasun dabadeetana markaasi waxa uu ku yidhi anigu waxaan kuu hayaa sanco kale oo aad markaasi aada guul kaga gaari karto noloshaada isla markaasina aad kaga takhalusi karto iibinta cadayga dabadeetana waxa uu ku yidhi nin wanaagsan baa tahay maxaan kugu dhahdaayey ii sheeg bal sancadaasi dabadeedna waxa uu ku yidhi horta waxaan ku weydiiyey ma tukataayoo salaada sidaad isku tihiin dabadeedna markaasaa waxa uu ku yidhi niyow run baa wanaagsane maxaan kugu dhahdaayey ma tukado oo salaada maxaan kugu dhahdaa maalinka jimcaha iyo iidaha oo keliya un baan tukadaa buu ku yidhi dabadeedna markaasi waxa uu ku yidhi haddaba horta waxaan u baahannahay marka ugu horeysa in aad maxaan kugu dhahdaayey aada bilowdo salaada isla markaasina waxa uga sheekeeyey qiimaha iyo ahmiyadda ay salaadu ay ku leedahay qofka bini-aadanka iyo guud ahaan mujtamaca dhexdooda dabadeetana markaasi waxa uu ku yidhi niyow nin wanaagsan baa tahay maxaan kugu dhahdaayey talo wanaagsan baanad isiisay taladaasna waan qaatay dabeedna ninkii salaadii ayuu tukaday isla markaasina waxa uu noqday maxaan kugu dhahdaayey nin markaasi ilaaliya waajibaadka iyo cibaadada ay salaada dabadeetana ninkii ayaa waxa uu haddaba is yidhi sideebaad ninkan qalbigiisa aada maxaan kugu dhahdaayey muddada intaa la-eg aan tukan jirin sidee baad maxaan kugu dhahdahay qalbigiisa aada u qaban kartaa oo aada markaasi waajibaadka cibaadada iyo salaadu ay leedahay aada markaasi aada ugu si adkayso aada maxaan kugu dhahdaayey aada falowgeeda aada u qaban kartaa deedna ninku markaasi waxa uu lahaa dukaan aada u weyn oo aada u camiran isla markaasina ay wax walba yaalaan dabadeedna ninkii ayaa waxa uu ku yidhi maalinkii dambe niyow saaxiib waxaan kuu dhiibayaa dukaankaygan isagaanaad ka shaqaysanaysaa oo aada maxaan kugu dhahdaayey wax kastaba aada ku qabsanaysaa oo markaasi nolol maalmeedkaaga aada ku maareynaysaa keliya taa adigu aada listi waa inaad maxaan kugu dhahdaayey samaysaa wax kasta oo maxaan kugu dhahdaa aada noloshaada adduunka iyo taada aakhiraba aad ku horumarin karto oo ay cibaadadu ay ugu horeyso dabadeetana ninkii ayaa markaas dukaankii baa loo dhiibay dabadeetana sidaasi ayuu horta kaga takhalusay cadaygii markaasi waxa uu noqday nin aada u ilaaliya waajibaadka salaada iyo cibaadadu ay leedahay dabadeetana ninkii aakhirkii waxaa isku rogay nin taajira oo maxaan kugu dhahdaayey maalqabeena dukaamo kale ayuu furtay isla markaasina nolosha heer ayuu ka gaadhay cibaadadiisuna aada bay u fiicnaatay markaasi qisadani waxaynu kala baxaynaa in qofka bini-aadankaa ama qofka muslimkaa diinta ay ka saaran tahay waajibaad aada u badan isla markaasina uu qofka si kasta oo maaragtay uu wax ugu sheegi karo isla markaana uu maaragtay uu qalbigiisa uu ku qaban karo uu maxaan kugu dhahdaayey uu markaasi sameeyo qisada waxaynu kala baxaynaa sidoo kale in diinteennu ay tahay diin aada u naxariis badan isla markaasna ah diin aanan jirin wax la mid a maadaama ninkani waxa uu eegay ninkan aan muddadii intaa la-eg aan salaada aan tukan jirin dabadeetana markaasi waxa uu wax ka bedelay noloshiisii markaasi intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni sheeko xiiso badan xoogagaal u noqo barnaamijka waxaad kala socotaan halka barta aan youtube-ka ku leeyahay ee maxamed turki channel sidoo kale waxaad kala socotaan barta facebook iyo whatsappka barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed siciid cali maxamed turki intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo fadlan ha ilaawin inaad tiraahdo like ama subscribe